السلام عليكم. حد كوكتاي dadkan dunida ugu la yaabka badnaa haddaba waxa uu horeeya Nikola Tesla wuxuu ahaa hawl abuure iyo saynisyahan maskaxiyeed iyo fikradiyeed farsamo ee korontada iyo isgaarsiinta aan weli si buuxda loo gaarin. waxa uu awood lahaa in fikradaha farsamada si faahfaahsan uga shaqeeyo maskaxdiisa kahor inta aanu ka dhigin wax la taaban karo. Number 2, Robert Wedlow wuxuu ahaa ninka ugu dheer ee taariikhda ahaan la duwaan galiyay. wuxuu cabirkiisu gaadhay 8.12 feet ama 2.17 mitir, taasoo ka dhigtay mid aad looga yaabo xilliga uu noolaa. Number 3, Leonardo da Vinci. Leonardo wuxuu ahaa farshaxanista injineer iyo saynisyahan cajiib ah. wuxuu isku darsaday hal abuurnimo farshaxan iyo saynis oo aad u sareysa waqtigiisii. fikradihiisii farsamo qaarkood sida diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka waa kuwa la hirgeliyey qarniyo kadib dhimashadiisa.